waa uun maaragtay waa la fahmi karaya macnaha waa halkii tiraab aan ku macnayn lahaa ayaan tix ku macnay halkii aan tiraab ku turjumi lahaa ayaan tix ku turjumay suuradaas macnaheed waana sidatan qoraxda markii la duubo dam iyo laga yeela baabaha. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا دعوة ديال ميل كستيت كسوغانتين ومركلة إيو برنامج كي كلان كغرفينتا وحمرتكو معلن قراء شيخ محمد هرسي ولاد عبد البشير محمد وحو كسوغان يهي مقالة ستوكهولم دالك سويدن وحويا كوفيدا بدن بولي يهي محمد سيدا إذن كان موقتاين باقرون كدن بيهي محمد وقراء وهل أبوري سوق شراني سوقان تكريا دواك تقرأ ومعلن وندين تلقى ما شاء الله ومفتير مفتي تضمن بوق قبل محمد حسين محمد سودو آدي أدنى وانكو سلامة يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الشكور آدي أدنى تنتهي آدي إيو أخيارتك كلين داون دونتوا فرحات بيتها يعني قول برياها بكو قادي إن شاء الله تعالى إن كلنا كان كلنا oo aynu ka sheekaysano wax cusub oo aan dad badan aad u ogeyn aniga lafteeda ogaalkayga maan arag waxyaabahan jecel inaan ka wareysto waana bad cusub oo kulleeyay in maadaama uu afkeenu yahay af ilaahay baa mahadle af taajira oo aad iyo aad hodan uga xagga halabuurka maadaama nahay bulshadii gabayga inaan awood u leenahay inaynu gabayga wax badan iyo maansooyinka kala duwan suugaanteena inaan wax badan ku cabiri karno si bulshadeena aynu ugu fudaydino fahanka iyo magaranaysaa inaan wixii ay u baahan yihiin wax ka ogaadaan maxamed insha Allah taala mar kale waan isku soo noqon doonaa oo sida idin muuqata buugta faraha badan ee ka dambaysa habeena kale ayaynu ka wareysan doonaa barnaamijka insha Allah taala taxana noqon doona oo kolba maalin ba aynu wax ku eegi doono maxamed xirsi waaye badan buu soo maray waa nin moogtahay waxa weeyaan nolosha uu soo jabhadeeyay maxamed saam oran kara horta in doora la noolyahay hadda aad laakiin imika waxaan u socdaa maxamed inaan ka wareysto arrin cusub oo uu sameeyay oo anigu aan u bixiyay maanso ku macnaynta quraanka محمد سام أوران كرا طبعا سوغامينتا أقونتا يدينت هذه محمد وحو سميي مانسوين وقرآن ككل معنيي سفاهن كدتك وكرو قاضو ما دام ضد بدن oo Soomaaliyeed quraanka akhriyaan macnahoodu ku adag yahay oo dadkeenu quraanka aad u akhriyaan aad baa loogu celceliyaa hadana dadka sharaxaadda quraanka iyo macnihiisa yaqaana ay dad badan ay aad ugu adag tahay isagoo albaab kale u furay ah oo maadaama ay Soomaalidu suugaan wax ku fahanto in suugaan wax loogu sheego marka maxamedow waa ku soo dhaweynayaa waxaan jecelahay horta su'aasha koobaad bal dad inaad ka jaahil saarto quraanka iyo gabayga waa la kala ilaalin jiray marka arintaadu ma fadlo cusub aad u heshay in quraankii iyo gabayga ama suugaanta la iskelin karo mise waxa weeyaan waa wax kala duwan oo magaranaysa sidii ahayd maaha bal arintaa ayaa sharaxaad ka bixi horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdishakuurow horta shicirku waa shay jira oo waa nooc ka mid ah suugaanta noocyadeeda kala duwan qayb ka mid ah weeye suugaantuna guud ahaanteedba ama ha noqoto mid afka laga sheego ama mid ficil lagu muujiyo ama mid markaa maaragtay gacmo lagu sameeyo waxay doontaba ha noqoto waxa weeyaan uun nolosha iyo qurqurxinteeda oo inta badan qurux bay ka tarjuntaa suugaantu markii uu quraanku soo degay ee diinta islaamku ay cusbayd quraanku wuxuu ahaa wax cajiib ah oo luqadii carabeed luqadda carabiga ku soo dego fusxada ah dadkii carabta waqtigaa noolaana waxay ahayd casri dahabigoodii luqadda oo ay ku suugaanta ku gabi jireen oo khatar ahayd marka waxay yidhaahdeen waxaan uu akhriyay maxamed waa gabay gabayga waxa u yaqaaneen
waxaa nabi maxamed akhriyaya waa gabayay yidhaahdeen oo markaa ma aha waxay dabcan waxay garanayaan dadka ugu sheegaan waa nabigu wuxuu yidhi waxyi baa igu soo degay ilaahay baa subxaana watacaala waxay ii soo dhiibay malakul jibriil buu igu soo dhiibay fariin baa idiintiin fariintuna waa qur-aankan ee dhegeysta markuu akhriyeyna waxay idhaahdeen waa gabay waa shicir bay yidhahdeen marka waxay doonayaan dadkii wax shaacirkana waxa lagu yaqaanay nin fanaan un weeye ninka shaacirka ahi wax qurux badan wuu cabiraa laakiin inta badan shucarada waqtigaas iyo shucarada waqtigan joogta inta badan waa isku nooco waxyaalaha caalamada kale hawooyinka ayaa jiita inta badan qaar dagaaloogayaal bay ahaayeen qaar dhinaca fasqay ku badnaayeen shicirku been ayaa ku jiri jirtay faan baa ku jiri jiray dabeedna waxay dabceen qur-aanka u nisbeeyaan shicirka laakiin ilaahi subxaana watacaala waxa uu siyaabo badan buu arrintaasi u anfiyey oo qur-aanka dhexdiisa ugu anfiyey wamaa huwa biqawli shaacir qur-aankani ma aha qowl qof shaacir yidhi nebiga qudhiisaa la yidhi shaacir maaha wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu nebigu maxamed maba yaqaan baa la yidhi shicirka shaacirra maaha manaanaan barinba marka arrintaasi waxay keentay guud ahaan weliba waqtiyadii dambe in shicirkii loo qaatay inuu sidiisa u xun yahay oo marka laga fogaaday laakiin sidiisa uma xumo shicirku oo shicirku waa hadal caadiya oo marna maxaan ku dhahdaa dembina noqon kara hadal mubaaxana noqon kara khayrna noqon kara oo waqtigii nebiga masaajkiisa laga tirin jiray laga gabi jiray nebigu cadowgu u adeegsan jiray asxaabtiisu masaajka ugu yeedhi jiray mimbar baaba uga dhex sameeyey masaajidka asxaabtiisa qaar ka mid a mimbar ay ka gabiyaan laakiin waxaa la anfiyey in uu qur'aanku yahay shicir taas horta ahayd sheekada asalku ee markii hore arrintan imika cusub ee ah inaan anigu tarjamaadii marka intaana maxamedow halkaa kusoo degin qur-aanka maadaama iyagu marka hore ay carabtu ahaayeen saa u sheegtay dee aad ugu xeel dheer xagga afku ma garanaysaa af carabiguna afafka culculus ka mid yahay weliba xagga suugaanta in qur-aanka laga leexiyey inaanu gabay ahayn ayaa moogtay marka hore ayuu ahaa budhigu macnaha hadalkoodii sheegashadoodii baa la anfiyayo meesha laga saaray oo ah hadalkanina waa shicir hadal caadiya ma waa shicir ninkana waa shaacir nebi maxamed waa gabyaah ayay yidhaahdeen markaasa waxa la yidhi kana shicir maaha nebi maxamedna shaacir maaha laakiin in la yidhi sidaasi may u ahayn shicirka qudhiisa ceeb umay ahayn waayo nebi maxamed waxyaalo kaloo laga anfiyey baa jira oo waxay yidhaahdeen cilmigan waxaan uu noo sheegaya qolo kalaa waxaa jira wuxuu ka keenay kutubihii hore oo uu kasoo minguuriyey waa loo soo yeedhiyey markaasaa ilaahay subxana watacaala wuxuu aayad qur'aana ku yidhi wamaa kunta ilaahay subxana wataala nebi maxamed wuxuu ku yidhi maad ahayn mid kitaabkan hortay wax qori jiray waxba ma qortid gacantaada weligaa waxba kumaad qorin baa lagu yidhi in lagu yidhi nebiga gacantaada waxba kumaad qorin macnaheedu ma aha inuu qoraalku wuxuu yahay laakiinse waxaa laga anfiyey maxay sheegashadoodii saas ay ahayd tanna waa taasoo kale maxamed intaynaan taada u iman adigu xilliga asxaabaha ama xilliyadii ka dambeysay intii aad baaritaan samaysay miyaad heshay cid qur-aanka suugaan ku macnaysay afaf kala duwan ma arkin cid qur-aanka suugaan ku macnaysay oo si ahaantaa yani intay arkay markay doonaysa inay tafsiirkii oo kale sharaxaan si dhammaystiran laakiin aayado gaara mawduuc gaara oo aayadi ka hadlayso sidaasoo kale waan arkay ama risaaladii ay aayaadkaasi sheegayeen oo la suugaameeyey af carabiga waan ku arkay laakiin in maaragtay suuratu heblaayinta la qabto gebigeedaba nadmi loo rogo kale maan arag marka nuxurku waxa weeyaan macnihii eryo caadiya lagu sheegi lahaa ayaad adigu iyagoo suugaanaysan ku sheegtay sidaas weeyaano inagu hadda waynu tarjamaynaa qur-aankii baa la tarjamayaa waxaa loo turjumayaa macnihiisii laga fahmay baa luqad kale loo turjumaya af soomaali la yidhaahdo markaasaa suugaan laga sii dhiga markaas in tarjamada macnaha la tarjumayo waa macnihii aynu u turjumnay ayaynu suugaamaynay qur-aankii dee qur-aanku suugaanna maaha waana gaarkiisa marka culimada la weydiiyo arrinta su-aashaasi waa su-aal waarida
oo majaamicda islaamka iyo culimada waaweyn islaamka iyo fiqiga waa la weydiiyey su'aal noocaas oo kala wax dhibaatayna kuma jirto haba yaraatay iska badaayay laga yaabaa inay wax qurux badan oo ay sida fahanka muhiimadu waxay fahanka oo quraanku xambaarsan yahay sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmayaan in loo gudbiyo ayaa muhiim ah marka maxamed waynaan lagu fahmin inaad quraanka ku maasootay laakiin waa inaad macnihii quraanka tarjumaadii quraanka ku maasootay turjumaadii ayaan ku maasooday oo halkii aan nasri ku tarjumi lahaa ayaan nadmi ku tarjumay caynkaas weeyaan halkii aan tiraab ku tarjumi lahaa ayaan tix ku tarjumay maxamed adigu markaad ku noqoto aad dib u yar noqoto goormay kugu dhalatay inaad sidan samayso inaad quraankii horta waa laba marxaladood oo kala duwan mid ahaan runtii intan aan baabka qoraalka ku dhex jiray waxa hindisay ugu soo dhacay baa jiray waqtiyadii 2000 iyo meelaha 5tii 6dii oo ahayd in aan sameeyo silsilada aan u bixiyey soo dhaweynta fahamka diin islaamka waayo dadkeenu iyagoo weligood muslim ahaa ay haddana waxaad moodaa inuu cilmigoodu inay islaamku iyo culumta islaamka ay ajnabi ku tahay sida culumta kale oo aanay cilmi dhagoodun ku hayaano weli ay caamo ka yihiin qof takhasusa u aado mooyaane haddana aanay waxba ka garanahayn weli waxaan si markaa taa asbaabaha keenaya waxaa ka mid ah cilmigii diinta oo aan deegaamaysnayn macnaha afkii Soomaaliga ahaa aan ku qornayn ku tarjumayn oo marka aan guri kasta isaga oo qof isagoo aan meelba aadin kitaabka ku jira shelfiska intuu la soo baxo kabar kala soo baxo kitaabka intuu akhristo fahmo macnihiisa oo taas ka maqan ayaa soo dhacday marka waxaan damcaynan okay sameeyo silsilad la yiraahdo soo dhaweynta fahamka islaamka qaabkan hindise wuxuu ahaa qaab su'aal iyo jawaaba dadna waxaan ka bilaabay kitaabka la yiraahdo baabka la yiraahdo arkaanul iimaanka in su'aal iyo jawaab ka dhigay 2006 meelaha soo baxay 246 su'aalood baan arkaanul iimaankii 6 tiir u rogay mid walba su'aal walbana jawaab yar kooban baa ka bixi marka qofkii af Soomaali ku akhriyay wax yar fudud haddana nuxurkii caqiidada islaamka halka uu ka helay haddana waxaan ku xigsiiyay kii labaad oo ahayd isdaahirinta muslimka su'aal iyo jawaab oo isaguna la mid ah 222 su'aalood oo dahaaradii iyo nadaafadii iyo weysadii iyo meerashadii ku saabsan marka halkaas anigoo wada taas hindise gaar ah marka ilaa 16 baab baan qorshaystay inaan ku sameeyo waqtigu dhamma uu socday mashaariicda adduunka iyo hawlihiisuna way iska badan yihiin iyo duruufihiisu baab anigoo ku sii tiigaalin baa haddana wax bari dhaxaas igu soo dhacday oo waqtiga 10 sano ka dambeysay inaan tarjumad ku sameeyo juz ama markii aan tarjumada juz ama marka ilaa 2016 meelaha 2016 meelaha shantii 2016 ayaan hawsha bilaabay marka markii aan taas sameeyay tarjumadaas macna kale ayaa ay soo baxay runtii waayo marka shay ku noqnoqoto quraanka hortu inkastoo macnaha aqoonta marka fahamtaba ay cajiib tahay iyo koorinteedu haddana quraanka lagama daale marka soo akhrido wax dheeraad ah ku soo baxay mar walba cilmi dheeraad marka radhan bay markasta ku yeelanaysa marka tarjumada muddadii aan ku dhex jiray dambe juz amma ayay ugu soo dhacday fikradani fikradahan ay ugu may soo dhicin aniga oo macaansanaya suuradihii aan tarjumayay qaarkood ay markaa ereysu ka deegmay ayuu ma igu soo dhacday ida shamsu kuwirat qorraxda markii la duubo waa tarjumadii aan ka fikirayay nabiga haydun ba suugan carabay u noqotay iyadoo taxaysan bay ku soo dhacday marka saas suurada ku samee marka dadban waa akhriyay dadka aad bay u jeclaysteen marka sanadana suurad kale sameeyay waa la sii jeclaystay marka saas ay sheekada ku dhacday marka waxa kuugu horeysay wayda shamsu kuwirat markii ugu horeysay adigoo tarjumadeeda ku jiraad heshay ereyada taxaysan waad ka sii socotay marka ma waxaad ku hakatay suuradda mise albaabka ku furmay albaabka ay furmay haddana muddo ka bacdi baan ayaa saasoo kale uun anigo sii wada ayaa ida shamsu ida sama shaqat oo juz ama baan haddana mar labaad
tarjamaad ku sameeyey sidoo kale ku sameeyey iyadoo sidoo kale u macaanaatay runtii waan sii waday markaa waxaan aayad kursida oo habeen walba la akhrino markuu si seexanayno salaad kasta dibaa gadaasheeda akhrino ayaan damcayn haddana ballan isku dayay iyadana maasha allah cajiib bay soo baxday haddana faatixadii baan akhriyey cajiib weji kale oo ayay haddana ii soo baxday macnaha aad fududana waa lagu qaar baaba qaatay oo markaa maaragtay soo duubay dhalinyar kala duwan saasaan kusii waday ida samaa markaas waxaan waday halataaka xadiid haddana ida samaa sabix isma rabbika alaclaa saasay inahaasaan hadda ka shaqeeyo markaa tirada markaa sugayso waxa weeyaan waa imsa suuradooda jiscama iyo haddeer waxaa tarjuman 4 suuradood jiscama faatixada iyo aayad kursida waa lix maasha allah xilliyadoodu sidee bay intay u dhexdhexaysay مثلا marka kala labada bal xilligu kugu bilaabmay xidigay bilaabdeen iyo xilliga inkastoo daan isku xigtigayno magaranaysaa ha maadaama aanay ahayn qasdan ma aha qasdi seekadani anigoo yani intan u fadhiisto suurad bilaay la soo bax ma aha anigoo akhriyaya ayay u dharanaysaa marka markii ugu horeysay 2018 bay ahayd tii ugu horeysay inta kalena way ka dambeysay oo waa intii ka dambeysay bay noqonaysaa marka 2018 bishii 9aad ayaa ugu horeysay inta kalena way ka dambeysay maxaa ugu dambeeyay waxa ugu dambeeyay sabix isma rabbika al'a'la oo aad yadana goorma ka faraxay iyaduna waa September 2021 ma sha Allah waaba yani waa waqtiga ka soo wareegin marka bal waxa ka sheekaysaayeen qofku markuu maasa tirinayo deewana deeriyaysu geeyso wayna adigu jeedada keento laakiin marka quraankii aad ku macnaynaysa ee maganaysa ay macnahan bal sidaad ugu fadhiisanayso iyo helista erayada iyo bal khayr sheekaarinta si fiican waa laba siyoodo markii ugu horeysay sharax caadiya marka ida shams kuwirat markii ugu sameeyay kale macnaha erayga quraanka koobnayna waa faahfaahin ba ku jirta aayad kasta laakiin markii waxaan si Allah ilaahay waxa ku fiican tahay inaad macnaha oo qura macnaha iyo isku fariisiso marka waan ka noqday dadna waxaan ku wada fariisay dhamaantood waa qofku waxaan isku dayayaa in qofku hadii la akhriyo uu garan karo haduu carabi hore u yaqaan tafsiir aayadan u jeedo okay imika albaaba ku furmay jiscama iyo ay kursida iyo faatixada oo iyadu jiscama labadaas jiscama ka baxsan baa samaysay tarjumada quraankana waxa samaysay waa jiscama iyo imika tabaarigaad wado ma sha Allah isagoo aan wali soo bixin marka yada ma sadaynaad ku sii macnaysan yaad sii wadaysaa mise imika waad ka soo yar maadaama kor loo sii socdo marka suuradu sii dhaadheeraanayaan si fiican horto jiscamada hotoon si aad ku wada dhamayso runtii horto waan ku sheego waa inuu maasada waxay ahayd maasada dhehun lama yidho way ugu soo dhacayday oo kale weeyaano sugaantu way ku xantaxanto wax ku xantaxanteynaya oo dareenkaaga hoose ayuu shaygu qaadaya markaasaad samaynaysaa marka inta badan marka suuraha akhriyayo ayay u dhalanayeen may ahayn wax aan intan u fadhiistay qalin iyo buug soo qaatay maanta waxaan samaynayaa suurad bilaay niyad ahaan markaan arkay quruxda hadda waan jeclaystay inay Allah ilaahay talo ugu yaraan suurad jiscama talo in isaan wada aad ka dhigto hamigaaga ha gasho laakiin iskuma dayo oo iskuma dayin iyadoo aan xantadaas si dabiici ah ugu dhalaanin inaan qarniyo buuginta qaataan oo aan isku dayo inaan sameeyo waxaan doonayaa in si dabiiciga akhriskayga badan marka igu soo dhacdaba horta inaan jiscama ahaan aan dhameystiro insha Allah ina jiscama dhameystiro laakiin sida uu sheegay in aad dul fadhiisan laakiin markaad akhridaad dhadhansato kolbaad tii kugu soo baxdaad ku samayso صح ها ما شاء الله fikradda guud ee mashruuca guud ee asoo dhaweynta fahamka diin islaamka iyo bixin kale oo la yiraahdo deegaaminta aqoonta
ama ha noqoto tan diin islaamka ama tan maadiga abe in aqoontii la deegaameeyo oo laga dhigo wax si lagu deegaameyn karaa waa inay afkeennii gasho marka waa inay qofka caadiga arigiisa la jooga oo maaragtay xallin karo masaa'il kala duwan afkiisa ku xallin karo maasha allah waa hawl culus waxaan jecelahay imika inaynu ku bilowno suuraddii ugu horreysay ee aad albaabka ku furtay adiguna inaad ku furto haddii ilaahay ka dhigo maansooyinka marka sidaad u sheegtay waa haween ida shamsu kuwirad marka kusoo dhawow erayada waad isku xigsiin doontaa haddaad hordhac u samaysana waad u samaynaysaa hadhowna wixii sharaxaada ka daba gelisana waynu geli doonaa insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay ida shamsu kuwirad turjumaadda ama maansada ama maansaynta macnaha suuradda ida shamsu kuwirad aan ku maansayay afka Soomaaliga waxay soo baxday 2018 bishii 9aad 12 runtiina waa maaragtay waa la fahmi karayaa macnaha waa halkii tiraab aan ku macnayn lahaa ayaan tix ku macnay halkii aan tiraab ku turjumi lahaa ayaan tix ku turjumay suuraddaas macnaheeda waana sidatan qorraxda markii la duubo dam iyo laga yeela baabaha markay xidigaha dusheennu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo markii buurahan dangiigsan dareerun lagu yidhaahdo markii la dayaco horweynta danayntii maal adduunyo markii bahalaha didaaya dugaaggoodiyo ugaadha duurjoogta la soo aruursho markuu dab ka kaco badweynta hulaaqooduna isdaaro markii dadka noocyadooda qolaba dhinac loo dareersho wixii isdabaysta maanta markii dacal laysu raacsho markii dulmigii haweenka hablii ifka lagu duleeyey la duudsiyey qiimahooda la furo dambi baadhistooda wixii lagu dilay la toydo markii dadka loo bayaansho diiwaankii camalfalkooda dabool weeye dusheenna markii samadaa la diiro markii doobira cadaabta la oogo dabkii jaxiima jannadu waa doog udgoone markii docda kale la keeno nafiba meeshay ku duuli wixii u diyaarsan haatan dareentoo way ogaatay xidigaa damdamee qarsooma haddana degdegee waxaadha habeenku markuu daboolmo amaba dabayaaqi joogo markuu dildillaaco waagu ayuu daa'inkeen ku dhaartay dulucda dhaartuna waxay tay in diin weeye qur-aanku kalaam yahay eebbe dooray inuu daahow rasuulka ku soo dejiyo u sheegay dirane malago awood leh oo uu alle darajo siiyey mid daacada oon la diidin la soo dirahani mawaalla bilaa daah buu korkiisa ka daawaday oo dhegaystay daliilka barmuu khabaysan wax loo daah furay ma leexin iblays dayra awarkiisa kumuu darin weedhihiisa xagga u diday saandadow daliilkani maaha sheeko dikriga weeyaan adduunka dariiqa inay ku toosto ciddii doonaysabaa leh haddaanse ilaahba doonin ma dooranaysaan hanuunka wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabbi alcaalamiin ayaa ugu dambaysa suuradda ida shamsu kuwirad maasha allah subxaanaka yaa xabiib sharaxaad inaad ku sii marka haddii aad eegto tusaale ahaan oo kale qorraxda markii la duubo dam iyo laga yeela baabah ida shamsu kuwirad markay xidigaha dusheennu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo waida nujuumu nkadarat marka eeg waida nujuumu nkadarat maxaa la yidhi waa markay madoobaadaan xidiguhu waxaa kaloo la yidhi waa marka ay soo daataan xidiguhu
marka inay madoobaadaan iyo inay meeshooda ka daataan labadii markaa waan ku kulmiyo markay xidigaha dusheenu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo labadana daliil baa loo hayaa inay damayaan iyo inay daadanayaan wayda nujuumu tumisat baa meesha taalla iyo intasaratna way taalla wayda kawaakibu intasarat ayadana taalla markii buurahan dangiigsan dareerun lagu yidhaahdo wayda aljibaalu suyirat markii buurihii la socodsiiyo markii la dayaco horweynta danayntii maal adduunye waida albishaaru cubtilat markii bahalaha didaaya dugaagoodiyo ugaadha duurjoogta lasoo urursho waida alwuxuushu xusharat markuu dab ka kaca badweynta hulaaqooduna isdaaro waida albixaaru sujarat markii dadka noocyadooda qolaba dhinac loo dareersho wixii isdabaysta maanta markii dacal la isu raacsho waida annufuusu zuwijat markii dulmigii haweenka hablii ifka lagu duleeyey la duudsiyey qiimahooda la furo dambi baaristooda waida almaw'uudatu su'ilat wixii lagu dilay la tooydo biayi dambin qutilat markii dadka loo bayaansho diiwaankii camalfalkooda waida suxufu nusharat dabool weeye dusheenna markii samadaa la diro waida asamaa'u kushitat markii doobira cadaabta la keeno la oogo dabkii jaxiima waida aljaxiimu suxirat jannadu waa doog udgoone markii docda kale la keeno waida aljannatu uslifat marka halkaasa maxaa ku dhacaya calimat nafsun ma axdarat nafiba meeshay ku duuli wixii u diyaarsan haatan dareenta way ogaatay marka waa sidaas weeyaan suurahaas isu leeyihiin aayadda iyo macnaha maasada maasha allah maya waxa weeyaan waa isku dhuuq weeye magarasa la oran jiray isku dhuuq waayo qofku waxa weeyaan dadka qaar baa tixda wax ku qaata dadka qaar baa macnaha caadiga ma ogtahay dayrin iyagu wax ku qaata marka fahankii ilaa xad baad soo dhaweysay maasha allah waxa weeyaan anigoo dee afka daawadayaasha ku hadlaya aad iyo aad baan kugu bogaadinaynaa shaqadaa weyn aad qabatay iyo hawsha culus ee magarasta dee aad ka soo baxday iyo si aad fahanka usoo dhaweysayda